magaalo ku taala Soomaaliya ayaa xadiday lacagaha ku baxaya guurka iyadoo laga bilaabo Sooriyada adeega guriga iyo alaabta la dhigayo xoolaha la qalayo adeega loo soo adeegayo xaafadda ilaa iyo gawaarida lagu galbinayo arooska ayaa la xadiday lacagta iyadoo lagu qiimeeyay inay noqoto lacag ka yar $1,000 xitaa waxay magaaladaasi culimadeedu ay xadideen in cabitaanka guriga la dhigi doono uu noqdo dhala fiimta ah gudoomiyaha maxkamadda degmadaasi iyo maamulka degmada oo kaashanaya culimada deegaankaasi ayaa go'aan ay isku soo saareen waxay xadideen oo ay u qoondeeyeen dhammaan lacagaha ku baxaya guurka kadib markii halkaasi cabashooyin badan oo la xiriira kharashaadka badan ee habeenka arooska baxaya iyo si ku baxaya aan dhihi xafladaha uu aad u batay waxa ayna culimadu iyo maxkamadda iyo waliba maamulka deegaanka ee dhanka dawladdu ay sheegeen in lacagaha ku baxaya guurka la soo koobo waxay go'aamiyeen in Sooriyadu ay noqoto lacag dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliga ah oo dhanka dollarka marka loo fiiriyo noqonaysa $130 iyo bar sidoo kale waxa ay sheegeen in guriga agabka la dhigayo uu noqdo fadhi iyo jiif ka badan lama ogola cid lagu helana waxay sheegeen in talaabo ay ka qaadi doonaan warka ka soo baxay maxkamadda waxa lagu sheegay in lacagta adeegu ay noqoto 3 milyan oo shilinka Soomaaliya oo u dhiganta 130 iyo bar lacagta dollarka marka la fiiriyo adeegyadan iyo waliba xadidaadan lacagta oo sii socota warqadda ay ku soo saareen maamulka maxkamaddu waxa lagu sheegay in raashinku ay noqoto loor bariisa loor sonkara haaf bura 20 litir oo saliida dhala fiimta ah sidoo kale xoolaha la qali doono waxay sheegeen inaysan ka badnaan doonin 4 neef haddii lagu helay cidii lagu helana waxay sheegeen oo qasha 4 neef ka badan maxkamadda la tiigsan doono ganaaxna la dul saari doono si lamida waxay sheegeen inuusan jirin wax la yiraahdo 7 bax iyo shaasaar warqadda waxa lagu sheegay inay tahay labadaniba mamnuuc waxay sidoo kale maxkamaddu ay mamnuucday gawaarida habeenka arooska galbiya iyadoo oo sheegay in kaliya loo baahan yahay 3 gaari oo kaliya gawaaridaasna waxa lagu sheegay in aysan dhex mari karin magaalada gaarigii lagu qabto in magaalada uu ku dhex mariyo aroos waxa lagu ganaaxi doonaa lacag dhan $30 ugu dambeyntii waxa ay maxkamaddu sheegtay iyo maamulka degmaduba in ay mamnuuc tahay sawirada ay galayaan lamaanayaasha iyagoo aan is aroosan markii warqadan ay soo saartay maxkamaddu maamulka degmada ayaa ku raacay isagoo oo sheegay inuu fulin doono waliba waxa ay maxkamaddu sii sheegtay in aroos walba oo ka dhacaya degmada Luuq aan lagu dhigi karin hotel meherka arooskuba uu ka dhaco xarunta maxkamadda ee magaaladaasi si loo go'aamiyo lacagahan cidii ku qabsata hotel arooska waxay sheegeen in ayagana ay ganaaxi doonaan bulshada deegaankaasi oo u badan ragga ayaa soo dhaweeyay haweenka warkooda lama hayo ilaa iyo hadda adeega mushaar bixinta payroll system ee bangiga Salaam waa adeeg kuu sahlaya inaad ku bixin karto mushaaraadka shaqaalahaaga si fudud iyagoo hal mar mushaaraadka u wada dhacayo intii ay waqti kugu qaadan lahayd mushaar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaaraadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report kuu sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushaar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid